asalaamu calaykum kusoo dhawaada daawadayaal warbaahinta gorod media production oo maanta laga bilaabo aad kala socon doontaan warbixinno iyo barnaamijyo caafimaad oo tayo leh iyo faaqidaad aan ku samayn doono wararka caalamka ee dhinaca diblomaasiyadda. haddaba si aynu ku dhaafin ku xidhnow GMB production oo subscribe saar furna gambaleelka si isla markaaba aad u hesho waxyaabaha aanu soo baahino. daawadayaal maanta waxaanu soo qaadanaynaa faa'iidada caafimaad ee ay leedahay liin dhanaantu. waxaan idinku soo tabinaynaa dhakhtarada caalamku waxay ka qoreen faa'iidada liin dhanaanta. dhowaan buug uu qoray nin dhakhtar ah oo uu ugu magac daray mucjisooyinka liin dhanaanta ayaa waxa uu ku soo bandhigay dhakhtarku faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo liin dhanaanta noocyadeeda kala duwan, walow aada loo ammaanay midda jaalaha ah ama huruudka ah ee badanaa wadankeena ka baxda. liin dhanaanta oo ah nooc ka mid a khudaarta ayaa uu sheegay dhakhtarku inay wax weyn ka tari karto caafimaadka qofka cuna, isaga oo la yaab ka muujiyey sababta la isaga indhatiray. liin dhanaanta waxaa dhakhtarku buugiisa uu ku sheegay in lagu daaweyn karo dhowr xanuun oo uu sheegay oo ay ka mid yihiin dhuun xanuunka, aaryada caloosha, saxaro adayga, gowska iyo cirid xanuunka, qandhada guud. dhinaca kale waxyaabaha uu dhakhtarku sida gaarka ah u xushay waxaa ka mid ah gubidda buurnaanta iyo cayilka, taasi oo uu sheegay in loo isticmaali karo liin dhanaanta. dhakhtarka ayaa buugiisa ku sheegay in faa'iidada liin dhanaanta aan lasoo koobi karin, isagoo oo sheegay in xataa la ogaaday inay wax ka tarto cudurro aan daawo loo hayn sida HIV aidska iyo kuwa kale oo dilaa ah. sababta ayuu sheegay dhakhtarku in liin dhanaanta laga helo maadooyin muhiim u ah caafimaadka aadamaha. haddaba cilmi baaris ay samaysay hay-adda aan dowliga ahayn ee la yidhaahdo American Urology Association ayaa sheegtay in liin dhanaanta lagu daaweyn karo dhagax keliyoodka, iyadoona ay sheegeen in ay nadiifiso kaadi mareenka iyo tubooyinka qaada kaadida. sidoo kale haddii aad qabto yirid ama ciridku kaa bararo, ku rumayso ama ku luqluqo biyaha liin dhanaanta. waxaa kale oo la sheegay in dadka afku ka soo uro ay sidoo kale subax iyo habeen walba ku luqluqdaan biyaha liin dhanaanta, taas oo loobahay inuu kaa tago af urku. si kastaba ha ahaatee, buugan oo loogu magac daray mucjisada liin dhanaanta ayaa wax yaroo kooban aanu ka soo qaadanay, isagoo dhakhtarkuna sheegay in liin dhanaanta oo ka mid ah khudaarta wadankeena ilaahay ku manaystay in ay wax weyn ka tari karto caafimaadka qofka bini aadamka.